okay. بسم الله الرحمن الرحيم. البروفيسور كسودو وعد كلنكا marka su'aashu horeysa sidii aad ku weydiinay waxaan doonay horta inaan ogaano xisbiga aad asaasteen muxuu ka kooban yahay muxuu yahay iyo influence ku leeyihiin gudihii muxuu kuwii horena kaga gedisan yahay marka waa saddex su'aalood weeye su'aasha hore xisbigu muxuu yahay xisbiga magaciisa heel qaran baa la yiraahdaa magaalada London baa lagaga dhawaaqay bishii February maalmihii ugu dambeeyay dad badan iskugu yimaadeen oo dastuurkiisii iyo falsafadiisii iyo ujeedadiisii iyo noociisii iyo dadka maxaan ku leeyahay madaxda waa intii ugu horeysay halkaas lagu soo bandhigay marka daadiisu waa imika 3 bilood ayuu marayaa in ku dhow wadanka gudihiisana imika xafiis baa uga furan dad ka shaqeeya ayaa jooga dad maamula ayaa jooga oo xisbiga hogaankiisa kamid ah ayaa jira muqdisho gudaheega waxaan filaynaa dhawaana in magaalooyinka kale ee waaweyn ay xafiisyo aan ka furno garawa ka mid tahay baydhaba ay ka mid tahay boosaaso ay ka mid tahay beledweyne ay ka mid tahay wadanka waqooyiga la fahantiisa in dadka la gaarsiiyo ay ka mid tahay marka ay inay noqoto arrin Soomaaliyeed oo ballaaran sababta xisbiga loo aasaasay waxa weeye in la helo vision aragti cusub oo macnaysa dadka Soomaalida waxay dhibaatadoodu tahay ee aan ahaynuun dadka qabiil bay isku dilayaan taasi waa meel sokeeyo analysis quwad leh ma laakiin u dhaadhacda socio economy for example dhaqaalaha iyo nolosha bulshada iyo siyaasadda iyo aqoonta waxa u dhaadhacda lafuhu halkay ka qurmeen u dhaadhacda iyo nimaadka marka horta in sida loo weeyay dabadeetana waxaa fooda la saaro in dadkii Soomaalida la gaarsiiyo talada dheer la gaarsiiyo meel walba dibadda iyo wadanka gudihiisa la wada gaarsiiyo way adag tahay waqti bay qaadan doontaa dabadeetana in laga soo saaro xisbiga dad halganka siyaasadeed iyo hogaanka wadanka team uga qayb gala oo soo bandhiga barnaamijkooda wuxuu yahay in laga soo saaro ayaan filaynaa waqti dhow marka xisbigu waxa weeye xisbi dhisan oo dastuur leh oo maanta durba dadka magaciisii uu wada gaaray ujeedadiisa ugu dambeysana ay tahay inuu ka qayb galo xisbigaasi tartan loo galayo soo nooleynta wadanka iyo hogaanka wadanka ummadii Soomaaliyeed taasi waa kaas xisbi lamid oo caynkaasna uu dama aragtay dad aragto wadi soo sheegi ilaa imika talabaad muxuu kaga duwan yahay baatida xisbigu ku weere wuxuu kaga duwan yahay oo kamida in dadka Soomaalidu ay inta soo gashay durba ay ku wada jiraan dadka ku jira central committee dadka Soomaaliyeed inay u dhan yihiin at least geographical distribution community la iska arki karo inaanu saarno fooda aqoon iyo karti iyo daacadnimo inaanu saarno dastuur inaanu leenahay in dadka Soomaaliyeed ee ballaaran dhiigooga u galo oo iyagu ay noqdaan dadka waxan ka dambeeya $1 ayuu qofka bishii bixinaya soo gala $1 bishii ee wadanka Soomaaliya gudaheega ku nool ee xisbiga soo galay $1 marka magaciisii qofka la qoro iyo halka uu degan yahay wax oo dhan waxaan filaynaa $1 inkastoo dad Soomaaliyeed aad u abaaraysan kadeedan ay dhibaato ku tahay haddana inaan ahayn wax dhabarka jeebkooga ka jabinaya $1 bishii inay bixiyaan dadka dibadda joogana waxa ku baxa iyaga laga rogayaana ninkii kartila iyo qofkii kartila gabadhii kartila waxaan ka filanaa inta in ka badan ay keento laakiin soo galiddu waxa weeye sanadkii $120 qofku inuu bixiyo 6 bilood inuu qofku bixiyo $60 soo tamad marka waa $10 bish $10 halkan qadada maanta halkan la igu siiyay sixnigayga qura ayaa $10 ka badan waana bilshi markaas wax sidaas oo wax waqtiga taaganaya dadka dhaqaale xumada haysatana ka warhaya oo saareen culays aan qaadi karin laakiin haddana iyaga maxaan ku raahay galinaya ididiila inay waxan kasbadaan oo iyagu leeyihiin way xisbi marka sida ayuu uga duwan yahay waxaan filaynaa fikradayada iyo visionka iyagu inuu ku duwan yahay waxa kale jira xisbiyo kale jira xisbiyo kale jiraan
inuu ka duwan yahay sida strategiga iyo tacticska aanu wadno oo anaku aan doonayno dadka inaan dhaqaajino dowladda aanu dhisano haddii aanu halkaas soo gaadhnana ay ka duwanaan doonto wixiina soo maray amba waxa maanta yaalaanba waxa dadka kale ay hayaan dadka soo gelaya sida loo dhisayo waxa ay ku soconayaan nooca ay leeyihiin xukuumadaha adduunyada sida loola dhaqmayo prioritiesku waxay yihiin sida la dhisayo waddanka sida loo dhisayo waxaasoo dhan inay ka duwan tahay dowladda iminka ku-meelgaalkay joogtaa sidee may og yihiin oo may ugu raacsan say u arkaan hadday og yihiin iyo haddaan ogeyn de annaka dan caynkaasa maxaan ku dhahay nagagama jirto iyagu waa dowlad yihiin way is urursadeen meel bay u socdaan annakuna waxaanu nahay dad soomaaliyeed oo is urursaday oo meel u socda fasaxna ugama baahnin ya soonaan kuu sheega kuuri dowladda soomaalida iminka taagan ku-meelgaarkii ma xisbi bay leedahay iisoo sheeg de hadday xisbi leedahay xisbi ma laha ada ii jawaabay marka waxa weye haddaanu xisbi aanu lahayn dhahayn ya marka xisbi soo dhistaan ay distoor soo dhistaan ay calan yeeshaan xisbi ya ay madax xisbi yeeshaan de markaasaan yaa laysa soo agdhigi karaa laakiin wax kale waa dad isa soo urursaday oo yidhi dowlad baan dhisanaa ya oo mid walba meel gooniya ka yimid dhibaatada jirtan aan usoo arko horta inta badiya waxaan aan ku fashilano reer galbeedka umaan rabnaa inaan wax ka sugno tanimatiin waxay noqon doontaa tu reer galbeedka una wax laga sugayo mise tu dadka soomaaliyeed wax laga sugayo horta ma saxsanid haddaad tidhaahda reer galbeed umaynu had iyo jeer wax ka sugana gacanta marin ee soomaalidu meel walba way taallaa meel walba way taallaa dadka islaamka ay hor taallaa dadka carabta ay hor taallaa wadamada afrika ay hor taallaa ya wadamada dadka jooga ciidamada u jooga maxaan ku dhahay wadanka gudihiisa ee muqdisho dhulkaa jooga dowladdan ku-meelgaarka ay ilaaliya wadada afrikaana marka gacantii baahidii soomaalida foosha xumeed meel walba way taallaa galbeedun ma galbeed laakiin de waa wadamada adduunyada ugu quwad weyn ugu xoolo badan ugu aqoon badan adduunyadana maamula lagama maarmayo laakiin annaka siyaasadayada iyo mabda ayagu waxa weeye kelmadda la yidhaaho iskaa wax u qabso ilaa maanta shilinka ku baxa heel qaran waxa weeye amba ku tabaruca oo bilaashahoo dadka soomaalida ka yimaada dadaalkooga ha noqoto shirka halkan lagu qabtay maanta halkan ku qabanay magaaladan Ottawa dad soomaaliyeed baa ka soo shaqeeyey soo ururiyey meesha soo qabtay biyihii la cabayey keenay warkii gaadhsiiyey bil iyagoo ka shaqaynay ya xoogoogi soo geli marka waxa weeye iskaa wax u qabso in lagu dhiso xisbiga heel qaran wax laga sugayo amba dad kale oo daris aynu nahay amba dadka islaamka ee ballaaran amba wadamada reer galbeedka ah laga sugayaa ma jirto haddayse iyagu kuula yimaado inaan mucaawanaan ku siinayna dee waad markaa waad la gorgortamaya mucaawanadu waxay tahay waxay uga jeedaan waxaas oo dhan laakiin xisbigani wuxuu ku dhisan yahay iminkana uu ku bilaabmay kula socon doonaa haddii uu faa'iiso quwad soomaaliyeed gacan soomaaliyeed maskax soomaaliyeed iyo xool soomaaliyeed